markii lagu cazimay inaan idan la hadlo oo munaasabadan idin la hadlo runtii inuu forum Somali intellectuals, businessmen, professionals, علماء الدين كانوا يهي والله يشيء لكن ما قعدت أنت هذا عن الماضي من أقالي ما قاعد الله نرجو أنا قاعد لكن ماشي اللي يراه الصومالي بالسكول كيني أو من نما نقوله هجاتين هرمرنا وكيمانيا يدو إلهي أنت بلغ الرجينيو أنا أريد تبادل مسي بارود مسي رام أنت وناكسن أنت إنه إلهي كبريني أمبان كتصالغاته صارت أقول عنه وحويان دمر عيل كل عي كوين والود يا بيدها رجوليا لكن كوي وأنكل وأري إن أوروما كسر جيران مالينا مركا ما دام الصومالي وذقتها دمر عيل كل عي كوي مركل دمر كله يري أي ذكر رجوليا يدهان أو ضركعة لكن دمر عيل كل عي كوي إنه كسر بحين ولا كسويه لكن رجدي باكرتها رجدي وأنا ماشي كل مالي marka waxa la ala wixii ma aragtay ee ku saabsan Soomaalidu oo aan isleenahay wanaag ayaa ka dhalan kara waxa la wixii lagu dayo diyaar baan u nahay garab inay ugu nahay waxaan idin sheegayaa waxaan maleeynaa gabadha say sheegtay maalmihii horena sidana way ka fiicneed wadanka uu ka fiicnaa taariikhda way ka fiicneed تاريخ ذنيتو آد ماركتي على الحماضة ولا هنا تطبع وحي كورنيان نيشن هود مركل هذين probably ويبا في عناد الله صومره صفة ماركت درانكي كل أنتو قرد الشيء أو غصور على وحي للسوقي مسا مناسب كذا نوغد ما أنت وحن سلاي هي ويكرر جبلنت هي شلي صوماليا وايو burburka markuu dhacay waxay hadii ayaantii intii ilaa 12 markab la geeyo oo kiiba intaas oo kun oo qof qaadayo oo la yiraahdo kulli waxa la idin taxaawaya Yurubkii iyo Mareykankaas jinsiyad la idinka siinay waxaan aaminsanahay Soomaalida meesha u badan tahay inay markab taraacid ka tiilada wadanka laakiin waa la tagay meel kasta up to a million plus 1.5 million 1.2 million I don't know how many but roughly that kind of a range ayaa soo wareegtay nin kasta hadduu masters qaatay hadduu PhD qaatay hadduu first degree qaatay wuxuu ogaaday wadanka uu joogo inuu ku yahay nin ajnabi ah oo midabta koor u jiro maaragtay basically dad bal leeyahay ma tagtay kaliya sharaftaada meesha lagu sugi karo oo sida ugu wacan loogu sugi karo oo wadankaadi dhaxdiisa meel kale ma aha maanta markii wadanka uu burburay ninkii professional ahaa oo first degree haystay oo isboori 30 jir ahaa waa la helin jir maanta ilaa 20 sano laga ka soo wareegtay hadda waxa weeyaan ninkii 60 jir markuu noqdo dibadaha iyo Mareykan iyo Yurub iyo Kenya ha ahaatee meel kasta oo dhan waan ogsoonahay sida wadanka loogu hiloobayo nothing seems to go right in real sense waxay la tahay damba maanta Soomaali meelay joogto dhanba aqoonyahankeedii wax garadkeedii bixmishterigeedii dhalinyaradeedii way meelii loo kacayna hata caruurtii inta badana waxa naga qabsaday inuu garanayna marka maanta we have a common cause to go back to in wadanka dib loogu noqdo wixii aan lahayd la hagaajisto ilaan rag wadan ay leeyihiin iyo dumar ay leeyihiin inta tagtay hagaajisteen yaa markii hore inta televisionka aan ka aragnay la yiraahdo hadii loo guuro de waxba isbedelaysa waa ka tagay aniga meesha ahayd laakiin wada ogsoonahay waxyaalada lagu nool yahay meelaha kale waan ogsoonahay wadan dadkeeda helana meeshu gaari karo waan ogsoonahay potentialku uu leeyahay ninka Soomaaliga meel mise gabadha Soomaalida meel kasta oo ay tagtay ee sharafta iyo qiimaha iyo dadaalka iyo hal abuurka iyo bixmishtari ahaya nolol ahaya capacity ee community leedahay society ga waan ogsoonahay marka it has come out we have come to the realization maanta waxa weeyaan waxay la tahay Soomaaliya way degaysaa waana lagu noqonayaa wadankana dib baa loogu noqonayaa una dhismaya sharaftiisana way soo noqonaysaa waayo waqtigii ayaa bisleeyay midda iyada
taariikhda la soo marayna way bislaysay. waxaan idin sheegayaa fikrado wanaagsan oo intii la isku imaaday la isku keenay waxa weeyaan usually doesn't bring the kind of change people need. Ideas are always there. fikrada markasta way jiraan. 15 years ago haddii meel la fariisto fikrada oo sidan oo kale oo very noble or exceptional way jiraan. Lakin the difference is there must be a core group or sacrifice their way or committed to that cause inay jiraan dadka inta kalena waa followers. Basically ummad kasta oo xorowdo oo meel gaarto 4 qof 5 qof 10 qof 15 qof baa u badan markii guusha la gaaro halganka meesha ugu dambeeyay la gaarana waxa la arkaa 4 iyo 5 kale inay ka nool yihiin inta kale oo dambeeyay halgan ku soo dhinteen. Lakin dadka as-aaso oo the originators of the idea usually is a small core group which is prepared to sacrifice their lives, to sacrifice any material gains. wax kasta oo nolosha ay maaragtay ay diyaar u yihiin inay taariikhda galaan ummadaasna ay kaga tagaan si ka duwan sidii ay ku arkeen. waxaan idin sheegayaa haddaad professionals tihiin, haddaad businessmen tihiin, haddaad maaragtay dad scholars aad tihiin, waddanka hadda markii dib loogu noqonayo isbeddelna laga keenayo personal sacrifices baa loo baahan yahay. hurid baa loo baahan yahay. huridda markaa waxay la khilaafaysa we come from a society that values material gain. waxaan nahay ummad ninka qiimaha shakhsiga uu leeyahay gabadha mase ninka uu leeyahay inta badanaa lagu qiimeeyo wixii hanti oo uu leeyahay qofkaas. Soomaalidu waxaa la yidhaahdaa been way sheegtay laakiin been kuma mahmaahdo. xaar hadduu xoolan lahaan lahaa xaar ma la dheheena waxaa loogu yeeri lahaa oday jiljileec. soo saamay naf Soomaaliya hadduu xaarka saxaradda uu xoolo leeyahay waa xaar lama dheheen sankana lagama qabseen oday jiljileec buu noqon lahaa yaa loogu yeeri lahaa. marka basically we come society waxaan ka imaanay la value gareeyo la glorify galeeyo maartay la sharfo which is okay. I have absolutely no problem. waxyaabaha aan ku noolaanay oo aan up to now ay ummadii ku dhisan tahay iyadoo oo burburkaas oo dhanba soo martay with the ability to make a change within themselves. laakiin waa ogsoontiin nimanka yahuudda la yiraahdo waxaa lagu qiyaasaa 15 million inay yihiin adduunka inta ku nool. 15 million kaasayto they control the economy by and large of the rest of the world by and large. markii China iyo meelaha ay ku laga dhaafo inda yarta ilaa nin yahuud inda yar wali ma aan arkan anaga laga dhaafo inta kale ayaa controlan. were people endowed without material disposition. laakiin wadankooda iyaga ay lahaayeen oo ay dad ka xoogeen oo ay xoog ku qabsadeen oo hadda 70 sano ku dhaw ay ku nool yihiin. waddankaasayto nolosha ay ku nool yihiin waad garanaysaan waxay ku nool yihiin wax la dhaha kibbutz. waxay ka soo saareen saxaradii bay ka soo saareen nolol oo ay falaan waa si communism oo kale oo iyagana dhaqan ahaan iyo taariikh ahaan waa dad hantigoosad oo capitalist ah. laakiin Israel maanta waxa weeyaan the most socialist state in the world where the disparity between the higher echelons and the lowest echelon is hardly anything. waayo waa dad kumaan kun oo sano mise boqolaal sano dhib soo maray basically waxay rabeen inay sharaftooda soo ceshadaan homeland iyaga ay leeyihiin ay yeeshaan. marka lacag doona oo adduunka ka hagaajiya meel kastaba laakiin Soomaaliya markii sharafteeda la soo celinayo midda iyada hal huro wax allaala wixii aanu isniri isbeddel baa ku imaanaya. meel alla meesha loo baxsada la yiri oo markii wax la sameeyay la waayay unba wax la sameeyay la waayay un ilaahay loo noqday bay Soomaaliya oran jirtay marka aan tabarbeelnay ilaahay u noqonay which in itself is not quite the best thing. ninkan ilaahay baan ku daayay buu yiri hadda ku hor tabar darri markay meel ku dhigtay baad ilaahay ku daysay tabar hadda la iska celin lahayd buu yiri. muhiimadda yaani waa Soomaalida mahmaahad waan ogsoonahay meeshii loo noqon lahaa masaajidkii lagu carir lahaa haddana balaayo kala digtay waan ogsoonahay
wadaadkii ha lagu baxsada la yiri waa lagu baxsan waayey odayaashii cuqaashii iyo oday markii ha lagu baxsada la yiri waa lagu baxsan waayey aqoonyahankii mid warlord u noqday maxay ahayd personal assistant oo luqadda iskugu hagaajiyey iyo mid maaragtay kaba shaqeeya fidnadii oo ku doona wasiirnimo iyo madaxtinimo iyo wax kalanimo oon qoysnimo iyo qabiilnimo iyo oo isla wixii aad Yurubka taxi antaad waday mise aad meel yar ka shaqeynaysa aad ka sameyn weyday oo Soomaaliya haddaad tagtaa ma dhowr boqol dollar hesha oo soo noqota aad ku dhisataa guri Mareykanka mise Yurub mise anywhere mise Kenya marka wax badan baa la soo arkay so much so that ani waxaan dhahaa ninka Soomaaliga fiicana oo macaana markuu wax ku sheegayo wax ka dhadhexo ماشي مركو فريستنا ما بها قف كاد قرنيس أروح أنا هاي دتك أول ولي شيخ شريف يدتك الله متكها من إله الشيء كرم إلها عمري خطرت أنا وقال يا أنت مالود أول مارتي أنا صومري يدتك مركاون أورك إسوتين ما أنت روما أركض بكوير سمالي أنا هاي ستو أيجا أنا هين شريف سبيكر waxaan isku aragnay in front of Intercontinental Hotel asagoo doonaya speaker-nimo yaanka markaas intaan xisaabtamay baa iri war Soomaali hawiye lagu soo jabdaaro lagu soo jab isaaq wax lagu ma hayo in kasta war show kuwan yar yar ka baa dadkii meel geel lahaa ummadii badbaadin lahaa dadkii ku farxay oo oleeyay ninka yar oo shariifka war kan un maaragtay حتى هذا النقطة إنه ما أرتي عرتي سوي بس كيرتها أو عري ريها بالوحوجا كلي هلا درجي هدي الله دونا لكن صومالي أنت ذكر شرفها قصة مية هذا واحد كذا أبو بحسن كيه أنا الله بحن سكين يمديه واحد بحسن مال أن لو خسار ماله وطن كده because of the nature of the adversarial effect of international relations بدنا ندين شيء دقيستو adduunka Mareykanka Ingiriiska ayaa isku dhow waayo midba inta badan ka dhashay kii kale oo immigration ki Europe wa America wa land of immigrants iyo Canada laakiin dadkii hore haystay oo maamuli jiray ay ka xoloobeen Ingiriis baa luqadda lagu hadlana waa Ingiriis ayagana hadduu Jarmal ka yimid Holland ka yimid haddii Afrikaan inta laga qaaday markii hore waa adoon si loo geystay wax kasta oo ahaa waddan waa niman hadda Mareykan iyo Ingiriisna way ku hadlaan way isbasaasaan oo iyaga dhaxdooda way istilaafiyaan oo waa the nature of international relations yahuuda Mareykan hadduu sanaheyn xoogsoontiina to not survive waxay sidaa tahay inta jeer oo basaas yahuuda lagu qabtay Mareykanka dhaxdiisa ilaahay ba sheekay wada xoogsoontiina we must have read it some of them hadda majalka ku jiraan آمنين عدنا عد كستنا الحساب تم هذه اللي يرى هذا حواشي وحني هاي وماشي قدام بلقى جاره مركز دمنا اللي يرى هذا ورميلا كمرنا مالها أود كله ترتويه هاي سودي من حواشي عن نقولين إيمان كلا كغادي إلا العدو قاعد وياه هاي سودي من لا حسابتنا لا شقي من هذا ماشي انت فدي آد كنت مركز النقطة ناشناليزم كالصومالي ده iyo qiimaha aan aad u xusaanay aan jeclahay waa professor Ali Khalif Gallayr professor Ali Khalif Gallayr markastaba mowqif adag buu ka taagnaa wadamaha ma aragtay dariska uu la xisaabtan baa ka jiray meeshadeed war haddaad hataa ma aragtay aad liidato ummadaada ay jabtay de wadankii inaad iibisana meesha kuma jirto inaad dad kale ku wareejisana meesha kuma jirto inaad adigana aad badishay maxay ahayd dhaqankaada oo tiraahdo war anaga iyaga waaba isku cid baan nahay oo waaba jabarti baa la dhahaa barkooda waa maartay dawlad bay ka soo jeedaan mise saaq bay ka soo jeedaan mise hawiye wax unaankaas oo kale waan gaarnay heerka asage for God's sake war Soomaali waa Soomaali cid kale oo nahay ma jirto carabna ma nihin maxay ahayd xabashina ma nihin محمد باناي كوشتيك باناي رل عفرتي وحن ولا الله إنها أنجا ممكن صاحو يو محي هيد أورمادي يقواسان هدي دب لور راع أنت أصوب غلوسنا كوين هات وحن سكولة دينا ريجن بان سكولة نول هايو وانو حساب تمينا لأن و 60% or 50% of دن نقول 45 million بين إثيوبيا كنول you still have to be careful identity هذه شرفت هذه ومد هذا مستقبل كذا كلا هذا ولا السنة هذا حساب تم ماشي كتير مركز تاي هذا هن وين دقيقة وايو scramble for Africa
بيجري جرتي way back. Right now there is a possibility for a scramble for Somalia. هادو ما عرفتي مثلا قريقة مثل هاي أوركا أو دعو أو بختيو لباها كلمة عنيو ضبعها عنيسا محايا هاد ورابها عنيا محايا هاد اي دورتا عنيسا وحي أن هويسان كري مركا ورنا نما ميلبو كقوصانيا مركا جبت الصومالي نكستو هويسان دونا مركاس it's a loaded word وتفهمي سامان ومالينيا عد كاستينا قيبتا كقات ويفهمي وي هويسانيسا ما دام اللي قول شيء حدنا إنه شدال قبو أو هنتي كجرته أو خيرات كجرته أو وحكست كجرو ورهذا نكستو هويسانيا نال حساب تمام أنا وسو كينيان مي إلى حساب تمام إيش الشكية أنا هاتي ما دفعت صومة حساب تنوى اللي بهيه دولة لماذا واحد معناها دولة لماذا ومدعية دي أنا عد كست الشكية قبته وعكروا ندين شيء يا أنا لو حركوس جنّي بربر إن كين أو كلا عن مرنا بربر ما كوس جنّي بربر كان كوس جنّي أو لو كن يسديدي لو كن يتضبط دمات كذي لو كن يسديدي وهذا سنتين واحد عاي وانس جنّي أفرتني يصدق قبيل باكون نور أنت وقوس كستو يجي السيدة إيه أنك الصوماليين نوقف فوقيين يجي نوكل فوقيين لغة دهان دجان دهان صورة دهان كل إيكار فوقيين بل كوا أنك نودو وأنك سان وهذا النهضة رياضة ولا الرادي up to 30% 25% لقى دحيلية قوس كي مدحويني هوري لغة دي لغة دهان هذا آد بيسكود وين هذه فهمتين سما تيرادا يحيى بدن روب كي أريج يجيت كي كل واحد مسكو سوى نشجنا وان سجناي مركان سجناي وحلي يودن كي هل هالشيء هلقوا مذوب حكمك هنا اللي هجاتشيو فريم واجي مردم بقى أنا الله سجناي بإذن الله الكريم محل سميه ميل الله ماشي بربرك وكده عيبة اللي يري هلوص ما يرفهم أودنا برلمان كالجي وايو أود مركز وحاكوت كرفشة executive مع كمالين أود باللو يري برلمان كنا أود باللو يري institutions كنا هلا ريفورم قريال يري وان بربورنا مد بمالين بنجيبنا شالي هذا فيرنا يصير نمن جاجس ها وقيمة لها ومقعلها يا هل مرة كلي فيجي كل وقت قدي هجاتنا يو أو panel كله هجاتنا يو أو commission كه أو vetting commission كه أسرعنا markii la baarayo oo maaragtay laga qaadayo la interview gareynayo openly baa loo interview gareey subjected to parliamentary approval and then finally baa la yiri eegan shaqadii qabsada Soomaaliya waxay u baahan tahay in institutions ka la bil gareeyo haddii la yiraahdo baarlamaanka oo dhan hadduu intuu meel fariisto go'aan uu gaaro gudoomiyihii baa oranaya anigu lama jirin midda iyada ma soconayso You have to start empowering annaga wadanka annaga isbedelka wuxuu ka yimaaday baarlamaankii baa awood buuxda la siiyey awoodda koowaad oo la siiyey waxa weeyaan anu markaan soo geliyay baarlamaanka 1992 ku dheeraaday raalli hada markaan soo geliyay baarlamaanka waan gabagabaynayaa waxaanu qaadanaynay mushaarka annaga 39,000 oo shilinka Kenya 39,000 meel decent oo fiican oo nolol fiican oo ninka MP-ga uu ku noolaan karo oo mustawadiisii xaafadaha anagu aynu garanayno xataa kirada guriga ma bixinayso hantidii dadweynihina executive-ka boobaysa oo madaxweynaha iyo wixii la shaqeynayay baa boobaysa waxaanu fariisanaa baarlamaanka maalinka talaadada iyo niska dambe arbacada oo niska hore niska dambe iyo khamiista oo niska dambe khamiista niska dambe anagoo 15 meelahaas 20 baa ku hari jirnay baarlamaanka oo mucaarada inta badan inta kale oo dhan waxa la tii guriga madaxweynaha maxaa saf baa loo gali meeshii buu lacag ku siinaya lagu soo ay ku soo wareegaan constituency-kooda maxaa every weekend weelaad constituency-ga tagto hadda nin caruurtiisa iskuulka laga soo fiijinayo oo cunto gurigiisa aan ku haysan aqoon kasta hadii uu leeyahay xor ma noqon karaa so the first thing is gurigi sharciga hagaajinaya dadkii sharciga ku hagaajinaya sharaftooda in loo muujiyo hadda waxay dhahan Kenya baarlamaankeeda waa kuwa ugu maaragtay lacagta badan la siiyo maanta nin baarlamaanka Kenya ku jiro oo adlaarish karta ma jirto
هذا أنا لا لشتين نقطة وأنا العجم ملايين ملايين أتكل لشتو من سمين كلنا مجر وحنا إجازات كوكوران وحنا كذي سنة وايو حدنا هالمليون شلون قاتم حد كل شيء marka waa laazim in dadka la siiyo mustawa ay xornimadooda ku muujin karaan oo kaamil ah maxaa if it's a choice between starving and failing to get a meal and going also to be compromised iyo inaad nin kale intaad u tagto lagu compromise gareeyo aad siduu rabay u dhamayso oo aad go'aanadii baarlamaanka u gudbiso caruurtaadii oo gaajaysan yeeli maysid madaxweynahaasaa ku yeelanaya nin alla ninka hantida baa ku yeelanaya hantida madaxweynaha uu leeyahay miduu asaga beer uu leeyahay ka soo falanay waa tii dadweynaha ummadda in wax loogu qabto loogu talagalay horumar ma jiri jirin the maximum capitalki waxa la dhahaa ordinary revenue wadanka waxa aan jiray 250 bilyan oo shilinka Kenya maantana 1 trillion buu gaaray just imagine that markaas shilin kasta la daba socda oo constituency kasta la yiri waa constituency development fund la hagaajiyay oo inaad madaxweynaha saaxiib la tahay maaha qasab inuu aad reerkiisa ka imaatay maaha qasab you get your rights because wadankii baad ka mid tahay nin kastoo wadanka joogana xuquuq wuxuu leeyahay basic ah oo aanan u baahnayn in lagu xisaabtamo marka institutionkaas bilgareynaysan waa baarlamaanka in la bilgareeyo judiciary oo independent in la bilgareeyo oo dadka judges kana ay noqdaan niman who can exercise their independence shaqo laga bixin karin dhaqaale fiican oo ku filan la siin karo intiba hadday noqoto marka askariga inuu shaqeeyo qasab ku noqon madaxweynaha inuu shaqadiisa qabtay noqonaysa lacagta kii baarayay oo mishaarka fiican qaadanayay lama oran karo keen intaasoo milyan oo dollar aan aniga u qaybsado fasaadkii baa dhamaanaya maxaa corruption baa wadanka baabiinaya Soomaalina waxaan shaki ku jirin arinta iyada inay dhibkeeda ay leedahay so institutionska hal la bilgareeyo waxaan taa u soo qabsaday arintan rajo hadda ay ka sheegtay is by and large mainly the building of institutions iyo waxa weeyaan the ushering in of reforms in la hagaajiyo you must do reforms and reforms kana parliament is the bedrock ninkan aad garanaysaan oo Soomaaliga oo shalay maxay ahayd la takooriyay ilaa annaga wixii aan soo marnay wad garanaysaan idinkii saashin labadii markaan aniga baarlamaanka soo galiyay ardayda Soomaalida oo jaamacadaha dhigtaan oo dhan 65 bay ahayd maantana alxamdulillah 15 baan ku xisaabeynaa يعني قيمها أنك تشوفين ودن كسكن كلاس citizens بعدين لقى ما يابا سيستم عين كاسو كان إلى القصة لكن ما أنت شرعي مدحوينها صحيحة وير هذا الممبران وهلوها جاجي يعني تضوات كان لقى صورة في نهاية أرضية كعيرية وإلا ما constitution وإلا لا ما عرفت إلا وافجيو وإن ما عرفت إلا السماء وقتي وكذا ما هذا تبغى عليه إلا الدستور كي بعد كنت أجنتهاي أودي مركا waxay ku siinaysaa haddaad tahay minority haddaad Italian aad tahay wax kasta aad tahay you are basically sharcigi ba ya maaragtay ku defend gareynaya wadankina defend gareynaya madaxweynuhu uu oranaya khalad baan sameeyay waa inaan dib ugu noqdo oo maaragtay we have to mobilize the parliament again get the 2/3 majority and seek an extension because the constitutional provision lama bedeli karo sharci ahaan lama bedeli karo marka waxa kali oo Soomaali kala hagi karo waa sharci sharci la fulin haya ayaa kala hagi kara waxa kale oo jirta waxaan ogsoonahay Soomaalidu waa dad fulay sharciga way ka cabsadaan ilaa hadda inta ilaa iyo ma garanayo dhowr boqol oo kun baan la joogtaa inanka kale uu gacan qaadi karo dharbaaxi kara malaha maxaa askari baa lagu yeeri bilistikiin hadda arkaan wariyaa iga yeer wariga bixiya lacagti war la rishi doona warkan caan karo waan soo wada garanayna wax ka sharci ka cabsi badan markay noqoto the rule of law Soomaalida ma jiro laakiin rule of law waa in la keenaa oo la yiraahdaa Abdullahi baa khalad sameeyay Zahra khalad sameeyay hadii la dhaho laakiin Abgal baa khalad sameeyay Awliyan baa khalad sameeyay ma jirto legal personality Awliyan la dhaho mise Abgal la dhaho la qaban karo yani qay kalaam baan idin sheegaya marka annagi let us put those institutions in place ummad ka yani waa law abiding waa extremely law abiding all over the world. Like where there's no law, then they take advantage of it. So, Rajo waxyaabaha ay ka shaqeynayso basically by and large were very good. Anu waan aqaanay saacid muddo dheer baan isnaqiinay ya Aasha xaaskiisa and we have had a lot of discussions for God knows how many years. Maxamed Abshir Waldana wuu joogaa inta discussion group baan qabnay hadda ka hor aniga asaga oo barkoodna markii dambe madaxii dawladda ka noqdeen إلهي هم قد في الدنيا عن قلنا أنا ما عاد كوي ماشي عن كعب سنين بكون بركود مرينا لكن واحد تهيبه
hadda maanta waxaa la joogaa waqti adag oo dad tested oo maaragtay lala xisaabtami karo oo hadday khaldamaanna sida aan idin sheegay madaxweynaha lagu yiri ma sameyn kartid sharciga yaad ku xadgudubtay oo awood uusan ku qabin lagu sameyn karo. You must build the institutions to tame the executive. waa in la xakameeyo executive-ka. waxaa xakameyn karaa a vibrant parliament, sharci shuruuc fiican oo maaragtay ku filan, a functioning judiciary, institutions of reform oo la hagaajiyo, and everything basically is deferred to those ones. The executive does the appointments, it's deferred, it goes through the parliamentary. waad aragteen cabdiqaadir yarkan soomaaliga oo constitutional implementation oversight commissionka Kenya ku jiro, committee ku jiro baarlamaanka. waad aragteen ninkan Keenan oo dad waa anagii de qabaa'ilkan waaweyn oo Kenya baan anaga aan awood aan la qabsan karnaa, laakiin dastuurkii baa ku siiyay sharafteeda mid ayada. dastuurka dadka kala hagaa, sharciga dadka kala hagaa, baarlamaankii baa la rabaa inuu shaqeeyo, judiciary baa la rabaa inay shaqeeyaan. nin kastana he becomes accountable to the authority of those institutions themselves. marka intaasay toban aniga idin sheegay, khayr Allah idin siiyo. waan ku mahadsantihiin, iga raan lahaada, waan igu dheeraaday. markanna waxaan isleenahay waxay noqon doontaa isbedel. horta isbedelka wuu bilowday. arrintan maaragtay gacmaha isas qabsada, ha lagu shaqeeyo, ha laga salgaaro. waxaa kaloo idin sheegaa soomaalinimo way dhalatay maanta. qoysqoys iyo qabiil iyo warkeeda ma jiro. wixii hore oo dadka lagu kala siri jiray oo siyaasiyiinta iyo madaxda iyo dadka danta ay ku kala siri jireen way dhammaatay. laakiin dadkii aqoonta lahaa yaa ninba wax la yimid, mid kastana wuu fiicay. isla hoteelkan annaga aan joogna ayaan hil qaran aan maaragtay ku dhagaysanay oo afkaar fiican oo aad u wanaagsan iyo dad dibadaha ka imaaday, basically Professor Samatar iyo they want to come back and partake in the reconstruction of the country. waxaan arkay kuwa kaloo dhalinyaro iyagana ha noolaata la yiraahdo, oo dhalinyaro iyagana dibadaha ka imaadeen. hadda waxaanu haynaa rajo way badan yihiin, yaana ka dhigin wax tartan eh. Let us see how we can combine these forces and bring them together. maxaa dhe lama gaarin Soomaali political contest iyo Kenya oo kale ay ka dhacayso, lama gaarin. horta wadankii ha la sugo. marka wadanka la sugayo, you need to combine your forces, your energies, your ideas. waa inaad kulli la wada combine gareeyo oo dadka isla wada shaqeeyo. markuu wadanka dego, security systemkiisu hagaago, baarlamaanku uu shaqeynayo, institution hadhow nin kasta madaxweynaha uu istaago ha raadsado. laakiin haatan there is need for us to be able to bring those forces together, and those forces can bring in the changes that we want. laakiin reform forceski oo progressive ka ah oo dibadda iyo meelo badan ka imaadeen oo dad qiimo badan ay haystaan, hadday tartamaan iyaga dhexdooda, then you allow the status quo to remain the way it is. waad maqasheen soma barlamaan baa la hagaajinaya. barlamaanka haddii la hagaajiyo, hadday 4-5 nin oo Professor hebel iyo hebel kale oo wada maaragtay reformist ay soo istaagaan, dee kuwii aad ka cararaysay oo tuugtahaa bay haddana gacantu geli bahashiyadeed, ilaa iyaga haystaan lacag ay soo xadeen ay dadka ku laalushayaan. laakiin haddii la combine garay forceska iyaga oo iyaga ay la imaadaan a single candidate of their own iyo xisaabo ceenkaas oo kale, it becomes much easier to deal with. so iyaga dadkii intellectualskaana waxaan leeyahay isu taga. Soomaaliya maanta sacrifice bay u baahan tahay, moogi meel loo doonanayo wax ma aha, hanti loo doonanayo ma aha, magac loo doonanayo ma aha, gaari laga furo loo doonanayo ma aha. maanta waxay u baahan tahay dad jabhadaynayo oo wadankii ilaa mu meel gaaro oo sharaftiisa ay suganto. meel fogna ma qaadanaysa. 2-3 years 4 years Soomaaliya hadday nabadgelyo rasmi ay hesho iyo systems that are working or reform institutions koo dhan la hagaajiyo, it will come, and within 10-15 years it's going to be wadanka ugu qiimo badan bay noqonaysaa maxay ahayd Sub-Saharan Africa. marka aad baad mahadsantihiin, billahi tawfiiq. خير من اسلوبنا.